بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا الله يميش جوجتان بعد ما ندين سلامينا كسو دوادا يستر channel دمانتين سو دوادا إذن لانهاي كوكينا شاها السوقات أما بونكينا أما بيهينا ديران ومربا واحد عشين سوقاتا نالنا الصعدة إن شاء الله تعالى. لكم حنكسي وضينا قصة إياس بن معاوية المزني qaadigii aadka u cadaalada badnaa una caqliga badnaa maasha Allah tabaarakallah. maalinkii hore waxaan soo sheegnay qayb ka mid ah noloshiisa intii uu yaraa. maantana waxaan ku daraynaa qayb kale insha Allah taala. waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah in uu u yimid nin dacweynaya nin wuxuu yiri ninkan lacag baan u dhiibtay xoolaan u dhiibtay buu yiri geed meel hebla ku yaala anagoo hoostiisa fadhina baa wuxuu yiri intaan wax wada cunay baan xoolihii u dhiibtay. isaguna wuxuu leeyahay buu yiri xoolo maadan ii dhiibin. iyaas ninkii buu eegay la soo dacweeyay wuxuu yiri war ninka xoolo miyuu ku dhiibtay? may buu yiri aniga xoolo muna ii dhiibin. masaas ahaa waayahay buu yiri. ninkii soo dacweeyay ninka wuxuu ku yiri orodoo ma garanaysaa buu yiri geedkii aad ugu dhiibtay xoolaha meesha ku yaalay? haa buu yiri. orodoo tag buu yiri geedkii oo hoostiisa tag, waxaa laga yaabaa inaad soo xasuusato xoolihii qofka aad u dhiibtay. waayo qaadigu ma garan kara labadan qof kee run sheegaya kee been sheegaya. marka wuxuu yiri waxaa laga yaabaa inaad soo xasuusatee orodoo geedkii tag. kii kale la soo dacweeyayna wuxuu ku yiri halkan iska soo fadhiisa adiga. intuu ninku soo noqonay halkan iska fadhiistay. qaadigii wuxuu bilaabay iyaas ahaa inuu dadkii kala xukmiyo oo uu shaqadiisii dhex galo oo uu sida hawshii ku wado. marna wuuna eegayaa oo wuxuu eegayaa ninkan dee inuu cararo ma uu rabo. markii dambe iyaas markuu arkay ninkii markii hore waxaa ku jiray difaac buu ku jiray oo istifaac buu ku jiray, laakiin markii muddo dheer uu meeshii fadhiyey waxoogaa wuu iskala dhigay oo difaacii uu ku jiray markii hore wuu ka baxay. subxaan allah. wuxuu ku yiri si dhabiir buu iyaas wuxuu ugu yiri qaadigii iyaas ahaa wuxuu ku yiri ninkii la soo daaweeyay ma u malaynaysaa hata saaxiibka inuu gaadhay geedkii uu xoolaha kuugu dhiibay? isma oga ninkani. markaasuu wuxuu yiri maya muuna gaadhin. kow ma jooga geedku geed fog buu ahaaye markuu iigu dhiibay xoolaha meel fog bay ahayd. marka wixii uu rabo wuu ka gaadhay iyaas. yaa caduw allah, cadowgii ilaahay oo wuu ku yidhi ma intii uu kuu dhiibtay xoolihiisii oo aad og tahay inaad geedkaa hoos fadhideen baad maanta inkaraysaa? fadhi buu yidhi intuu soo noqonayo. ninkii baa soo noqday bas wuxuu ku yidhi xoolihiisa ninka waradoo sii. qisadaas halkaasi ku dhammaato way kala tageen. maalinkii dambe qisada kale ee aan ku raacinayna maanta waxay tahay insha allahu tacaala. waxaa dhacday nin baa soo dacweeyey nin. markuu soo dacweeyey baa wuxuu yidhi beer baan lahaa buu yidhi. beertaydiibuu ninkani iga qaatay buu yidhi qayb ka mid ah. beertan anaa iskale buu yidhi. ninkan ana wataa oo markhaati ii ah. ninkii markhaatiga ahaa wuxuu qaadigii u sheegay beertu meeshay ku taalay, meelihii madaha u ahaa macnaa calaamadihii meeshii boos walba marka la calaamadaynayo 4 dhinac baa laga calaamadayaa. marka meeshaas uu ku yaala calaamadahu buu sheegay. beertu noocay u eg tahay buu sheegay. intuu ninkani beerta haystay buu sheegay. afaarahaas oo dhan buu tiriyey. marka wuxuu yidhi waxaan ku weydiiyey wuu yidhi qaadigii beerta waxay u eg tahay inaad aada u taqaano. haa waan aqaanaa buu yidhi. haye wuxuu yidhi hadaa taqaano marka meeqa geed baa ku yaala? iyaas baa ka sheekaynaya wuxuu yidhi weligay ninkii iga caqli badiyey weligay nin baa iga caqli badiyey oo ninkaasna waa ninkan hadda aan ka sheekaynayno. marka wuxuu yidhi waxaan ku yidhi buu yidhi beerta haddaad si fiican u taqaano meeqa geed baa ku yaala? ninkii wuxuu yidhi madaxii uu hoos u foorariyey cabaar buu fikiray. wuxuu yidhi buu yidhi su-aal ma ku weydiin karaa qaadi? haa buu yidhi. meeshan aad hadda joogtid meeqa sanad halka fadhidaa buu yidhi ood qaadi tahay? markaasuu sheegay intii sannadood meesha fadhiyay muddo aada u dheer buu sheegay. markaasuu wuxuu yidhi marka gurigan kuu dhisan
waa qoriyo iyo waxaad isu geegeeyey meeqa qori baa ku jirta uu dhoola cadeeyey Iyaas marka wuxuu yidhi waad iga haysaa marka hadda waad iga haysaa beertiina wuxuu u xukumay ninkii soo dacwooday taasina waxay ahayd qiso kale maasha allah tabaaraka allah caqligiisa caadi ma aha waxyaabo badanoo waxaa jiray uu diinta uu qaadan jiray laakiin waxaa u badnaa caqligiisa ayuu dadka ku kala saari jiray isagoo oo caqligiisa la tiigsanaya kitaabka qur-aanka iyo sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam magaaladiisii uu deganaabaa waxaa kasoo dhex baxay nin ay dadku yidhaahdeen waa nin sheekha waa nin aamina dadkii ninkii lacag xoolahay u dhiibtaan waxay gaadheen heer ay isu wada sheegaan oo ninkii xoolaha looga dhiibanayo heer waxay gaadheen ninku markuu dhimanayo uu kula dardaarmo uu yidhaahdo xoolahayga hebel baan u dhiibayaa war hebelow markaan dhinto caruurtayda xoolaha u maamul xoolaha caruurtayda u kala tashiil xoolaha caruurta u hagaaji ayuu gaadhay maalin maalmaha ka mid a qaadigii Iyaas ah waxaa u yimid nin ka dacwoonaya ninkii wuxuu ku yidhi ninkii hebel ahaa ninka waxa weeye haybad baa ka muuqato garweyn baa ka muuqato sunnihii baa ka muuqdo cajiib weeyaan ninku laakiin ninku waa nin khaa'in ah si aan gadaal ku ogaan doono Iyaas buu u yimid ninkii wuxuu yidhi ninkaa hebel ah xoolaan ku leeyahay xoolahaygina waa iga inkaray buu yidhi qaadigii Iyaas ah wuxuu ku yidhi miyuu ku ogyahay inaad ii imanayso maya buu yidhi maana u sheegin inaan ku imanay wuxuu yidhi marka orodoo tag berri mooysaa dambe igu soo noqo wuu tegey berri markii la gaaray Iyaas wuxuu u yeedhay ninkiibuu u yeedhay dadku ay aaminayeen ayuu u yeedhay wuxuu yidhi yaa sheekh waxaan maqlay inaad tahay nin aamina waxaan maqlay inaad tahay nin fiican waxaan ammaantaada iyo waxaan dadka ka maqlay dad inaad qof aada u wanaagsan aad tahay waxaan hayaa buu yidhi agoon aada u fara badan baan xoolaheeda hayaa anigana sidaad ogtahay nin qaadiya baan ahay oo mashquulsan waxaan rabaa xoolaha inaan kuu dhiibo oo aada u maamushid xooluhuna waa xoolo fara badan marka waxaad samaysaa bax waxaad keensataa niman xamaaliina oo qaada xoolahan waxaanad igu soo noqotaa berri mooye saa dambe iyo imow waayahay buu yidhi berridu waa berridii uu qaadigu la ballamay ninkii ninka soo dacweeyey shalmuna soo dacweynaya laakiin ka sheegtay saa dambaduna waa saa dambada uu leeyahay nin yahow ii imo adoo xamaal wata bal caqligiisa eega maasha allah tabaaraka allah berridii baa waxaa yimid ninkii uu ninku xoolaha ka dafiray wuxuu yidhi orodoo u tago saaxiibka waxaad ku tiraahdaa xoolaha igeysee haddii uu kuu diidana waxaad tiraahdaa qaadigan kugu dacweynaya macnaa haddii qaadigan kugu dacweynaya uu ku yidhaahdo qaadigu xoolo fara badan buu berri ninkan u dhiibayaa sooma marka halkaa haddii uu waxan yahay wax jira oo uu ninku xoola ka qaatay ninka wuu bixinayaa ilan xoolo fara badan buu qaadigu u dhiibayaa saa dambe berridii baa la gaaray ninkiibuu u tagay wuxuu ku yidhi niyo xoolaha igeysee war socuu dhahay maana xoola kaa hayst wuxuu yidhi marka haddii aadan isiinayn xoolahaygii qaadigaan u tagay waan kugu soo dacweynaya maya qaadiga ha u tagin wuxuu yidhi xoolahaaga waan ku siinayaa hoo xoolihii sidii buu ku siiyey ninkii wuxuu u yimid qaadigii wuxuu yidhi qaadiyow wuu isiiyey ninkii xoolihii oma markaad ku tiri qaadigan kugu dacweynayaa buu ku siiyey xoolahaagii haa waayahay orod buu yidhi marka hayee saa dambadii baa la gaaray ninkii xamaaliin wata marka wuxuu u sheegay wuxuu ku yidhi waxaa tahay yaa cadow allah cadowgii ilaahay baa tahay diintaad ku qaraabanaysaa sunnaha aad iska muujisay waad ku qaraabanaysaa dadkii waad dhacday ilaahay ka baq ninkii waana ugu dhaqaaqay alla badanaa dad maanta sunnihii ka muuqdo ood u malaynaysid markaad bannaanka ka joogto inay yihiin dad mu'miniin ah laakiin qulubtooda ilaahay inuu u daalacanayo ilaahay waxaan ka baryaynaa walaalahayago meeshaan joognaba inuu makaan aamina inooga yeelo ilaahay waxaan ka baryaynaa guryaha soomaaliyeed meel ay joogaanba inuu ilaahay maslaxa dhex dhigo maslaxa khayr qabta inuu ilaahay dhex dhigaan ilaahay ka baryaynaa waxaan ilaahay ka baryaynaa hooyooyinka iyo aabayowga wada jooga inuu ilaahay qulubtooda isu soo dumo oo way isfahansiyaan ilaahay ka baryaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa awlaadeena kuwa barakaysan oo baariina inuu ilaahay inooga yeelo intaan haysanin kuwan wanaagsan oo saalixiin dayibiin ah
inuu ilaahay ku irsaaqan ilaahay ka baryaynaa. waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu wadankeena inoo islaaxiyo oo uu nabad khayr qabto ilaahay inoo siiyaan ilaahay ka baryaynaa. soomaali guud ahaan meel ay joogaanba way dhiban yihiin, ilaahay dhibkeenu ka saana ilaahay ka baryaynaa. dardaaranka maanta aan isku dardaarmaynayo waxa weeyaan insha allahu tacaala inuuna carabkeenu ka madhnaanin dikriga ilaahay. wuxuu dooniba ha ahaadee, ha yaraada ha badnaadee, waxa weeyaan inuu ilaahay inoo fududeeyan ilaahay baan ka baryaynaa inuu carabkeena iyo qalbigeena ilaahay iswaafajiyo oo isu waafajiyo wanaaga. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ميلاد جوجتانبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا ولادنا الفرحة للدنيا آخرة.